dhakhaatiirtina waxay dhaheen wiilkan kansarkiisa waa halis, waa uu faafay, waxba kama qaban karno. Marka daawooyinkii kansarka loogu talagalay xitaa ma siinayno, waayo kansarkiisa waa uu faafay. sidaas darteed waxaan siinaynaa oo keliya daawooyin kaalmaati ah oo caawinaya. laakiin arintaas kheer ayaa noogu jirtay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana haleeshiiyey in ay dhakhaatiirtii saas nagu dhahaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داودياشين شرفت له ku xiran channelkeena. soo dhawaad walaalayaal, ku soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo xiiso badan. waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago qiso cajiib ah taasoo aad la yaabi doontaan awoodda Alle subxaanahu wa tacaala iyo awoodda ay leedahay saliga nabiga. balse intii aan usii gudagalin qisaskeena markii hore sidii caadada inoo ahaydba aan isxasuusino maanta inaan ku saleyno xabiibkeena Maxamed. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله إله ينوزي هذه نمعوينك آدنا سيسي ويقوه الرئيسون نمعاد إسلامك عافماتك نمعوين بدن أيادنا سيسي وأن لحسي كرين لنا تلمامي كريم فربت نذو وأود. الحمد لله دائما وأبدا. انتي ولا لو حنونسن، انتي ولا لو كربيسن، الله سبحانه وتعالى كربتها كفيدو. انتي حنونسن على سبحانه وتعالى هسي عافمات تامة بإذن الله. انت كديب ولا الله شرفت له وحرب مانتا إنا إذن لو ذا وقصة عجيبة تاسو كمت قصوين كدفتا كنا سابسن سليق النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن وحي تري وحايق حنون صناي ويل آندلي ويلكي آندلي حنون أيوك بحوائية تري meelo badan ama isbitaalo badan ayaan geeyay. isbitaal wax ayuu sheegay. markii dambe waxaan go'aansaday isbitaal weyn inaan geeyo, baaritaan guud oo asagoo dhan ahna loo sameeyo. wiilkii isbitaalka ayaan geeyay, baaritaan markii aan sameeyay waxaa ka soo baxay hadal ama war aan ku farxin kaasoo ah in uu wiilkan qabo kansar. waan yaabay tiri, waan aamini waayay. dhakhtarkii waan ka soo watay. maalin kale ayaan balansaday dhakhtar kale si aan asna ula kulmo. sidoo kale dhakhtarkii kale waxaan ka codsaday inuu baaritaan guud ii sameeyo. isla jawaabtii hore oo kale ayuu ii soo bixiyay, wuxuuna ii raaciyay waliba waa uu faafay. yacni muddo hadduu joogo kansarka waa uu faafaa oo jirka dhan ayuu ku faafayaa, kadibna waxba lagama qaban karo oo markaas daawo wax ma tarayso. hadduu jirka ku faafo qofkii sidaa ayuu ku dhimanayaa, inkastoo qofka ajasha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhinto. reerkii aad ayay u naxeen, waa ay walwaleen. dhakhtarkiina waxa uu u raaciyay daawooyinka kansarka loogu talagalay xitaa idan ma siinayo, sababta oo ah waxaa la siiyaa dadka uu bilowga ku yahay. laakiin idinka hadda waa uu idinku faafay oo meel aad ka soo noqotaanba ma joogtaan oo daawan waxba idin ma tarayso. soo waxaan idin siinayaa marka xanuun baabi'iyaal iyo kaalmaad yar. reerkii aad ayay u murgeen. wiilkooda waa iska soo wateen, xanuun baabi'ihii ayay soo qaateen. waxay go'aansadeen dhakhtar kale inay ku quustaan oo meeshii ay joogeen ma ahee meel ka baxsan. waxoogaa lacag ay familka aruursadeen. ugu dambeyn dhakhtar aan wadanka ay jooga ahayn oo dibadda ah ayay aadeen. markii ay baxeen oo dhakhtar dibadda ay aadeen, isla jawaabtii oo kale ayaa lasoo siiyey. familkan waa iska quusteen. waxay bilaabeen in ay wiilkooda quraan saartaan, inay ilaah isku xiraan. hooyadiis hooyo waa qaali, mana laga maarmo. qof ayadoo kalena dunidan ma joogo. dadka muwalwal iyo murugo ay ku hayneen ayay ku haysay wiilkeeda, sababta oo ah waa hooyo. waxay bilowday inay akhriso saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, salaatul leyl inay tukato, inay wiilkeeda mar walba u duceyso. yacni dadka way u dayriyeen, way u quuseen, waa uu dhimanayaa, rajo ma lahan ayay dhaheen. laakiin ayada sidaas ma uga sabri karto cunugeedoo nool. waxay bilowday inay tukato salaatul leylka, inay ilaahay subxaanahu wa tacaala barida wiilkeeda inuu caafiyo. waxayna aad iyo aad u akhrin jirtay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, gaar ahaan siiqada ama qaabka ibraahimiyada oo ah allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kama sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim wabaarik calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم سيقداس أم قابكاس أو صيغة الإبراهيمية أي أخرج جرتي صلاة الليل أي سوق جرتي إلهي أي برن جرتي إنه بيل كده
caafimaad taama u siiyo. ilaahay awoodiisa waa ay weyn tahay, waa ay fara badan tahay. waxa uuna yidhi udcuunii astajib lakum, war ibarya aan idinka ajiibe. hooyadana sidaas ayay samaysay oo ilaahay subxaanahu watacaala ayay hortiisa ku oysay. salaatuleyl ayay soo kacday, dadkoo idilo oo jeefa ayay tukan jirtay, dadkoo jeefa ayay ilaahay baryi jirtay in uu wiilkeeda u caafiyo. may isdhiibin, maysa dheheen haddii ay dhakhaatiirta ay dheheen wiilkaada rajo ma lahan, khalaas dhimashadiisa ayaan sugayaa, may dhihin. hooyo waa qofka keliya ee aan kaa sabri karin, ee nafta ay wax walba ku horo. waxaa dhacday wiilkan muddo markii uu joogay ee hooyadiisna sidaas sameynaysay. awal waxaa qaban jira xanuun fara badan ayaa qaban jiray oo dadka kansarka qaba aad ay u xanuunsadaan. daawooyinkaas xanuun baabi'iyaasha iyo kaalmaatiga ayaa mar walba la siin jiray. hadda waxaa la dareema wiilkii in xanuunkii uu tartiib uga yaraaday, ilaa markii dambe uu noqday qof aan xanuun qabanaynin oo aan daawo dhan u baahnayn. hooyadiis waa ay naxeen iyo familkiisaba, waayo waxay isdhaheen wiilkiini maxaaladii ayaa ka dartay oo markaan rajo beelkii ayaa soo dhawaatay. way la carareen, waxay aadeen dhakhtar. arinta ah in xanuunka uu ka bogsanayo wiilka, yacni wax muddo soo booda ma ahayn, laakiin tartiib ayuu xanuunkii uga istaagay ilaa ugu dambeyn uu noqday qof aan xanuun qabanaynin oon daawo u baahnayn, halka awal uu xanuun baabi'iyaal iyo kaalmaati ku noolaa. waxaa dhacday markii isbedelkaas wiilka lagu arkay in dhakhtarkii loola cararay, ayadoo sina loo faraxsan yahay sina loo naxsan yahay, lisleeyahay wiilkii maxaa laga soo sheegi doonaa. inkastoo xanuunka uu ka fuqay, haddana waxaa lisleeyahay amay tahay xilligii uu dhiman lahaa. ilaahay subxaana watacaala ayaa ajasha iyo waqtiga intaba ogi. waa la waday wiilkii dhakhtarka markii la geeyey. familkiis waxay codsadeen baaritaano guud in la sameeyo, oo baaritaankii markii hore loo sameeyo kale in loo sameeyo, asiga dhan la baaro. baaritaankii la sameeyey waxaa soo baxday wiilkan wax kansar ah, iska daaya wax cudur xataa inuusan qabin, infection yar xataa inuusan qabin, oo kansarna uu qabin, oo caafimaad qabo. dhakhaatiirtii maadaama dadkii shalay wiilkan baaray oo kiiskiisa ama xaaladiisa ka warhayay ay yihiin, aad ayay ula yaabeen. waxayna weydiiyeen maxaad isticmaasheen. familku waxay ku jawaabeen waxban ma isticmaalin, ilaahay subxaana watacaala ayaan barinayna oo keliya salliga nabigana waan ku akhrinayna. familka ayagoo aada u faraxsan, haddana aan ku kalsoonaan karin hal dhakhtar go-aankaas uu gaaray. waxay go-aansadeen sidii ay markii horeba dhowr dhakhtar u tageen inay haddana sidii oo kale sameeyaan oo dhakhaatiir badan ay la kulmaan. dhakhtar kale ayay qabsadeen oo sidii oo kale ay ka codsadeen in baaritaano loo sameeyo. baaritaan ayaa la sameeyey. dhakhtarkii kalena waxa uu sheegay in wiilkooda oo caafimaad qabo oo wax cudur ah xataa kale uu qabin, oo kansarna uu qabin, oo caafimaad qaba uu ka bogsooday, oo uu jirkiisa nadiif yahay, wax dhibna uu lahayn. hooyadii aad ayay u farxday, ilmadiina waa ay cishan weysay, meeshii ayayna ku sujuuday. ilaahay subxaana watacaala ayayna u mahad celisay. ilaahay awoodiisa ma ahan wax la dhayalsan karo iyo wax la qariibsan kara intaba. ilaahay wuxuu yiri ibarya aan idinka ajiibe. marka haddii baryadaada iyo baahidaada aad alle subxaana watacaala weydiisato, waa mid awooda inuu kuu fuliyo. haddii aad soo kacdo xilliga ay dadka dhan jeefaan, aad ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa ku oyso, aad salaatuleyl tukato, aad barido, ma ahan wax fudud, mana ahan wax uu alle subxaanahu watacaala moogyahay oo waa uu ku arkaa. mar walba ay ilinkaa imaanayso, mar walba aad asiga dartiisa u weynayso, mar walba aad ilaahay subxaanahu watacaala baryayso, waa mid kaa warhaayo, waa mid aan ku mooganayn, waa mid og duruufta iyo baahida ku hayso. haddii aad baridana ilaahay subxaanahu watacaala waa uu kaa dulqaadayaa. waad mahadsantihiin walaala sharafta leh. muuqaalka like inoo saara, qaybta hoose commentigana aan ku nooleyno salliga xabiibkeena maxamed. wasalaamu calaykum.